بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك maanta waxaan ka hadli doonaa waxyaabaha ku saabsan group 5ka waa maxay group 5 Canada marka insha Allah muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay waa maxay group 5 dad badan ayaa horaan isoo weydiiyay group 5 maxaa la dhahaa maxaa shuruudaha la iska baahan yahay maxaa waay waxaas ayaa dad badan isoo weydiiyay dadkaas iyo dad kale ayaa raba inay ka faa'iideystaan muuqaalkan fadlan haddii aad ku cusub tahay qaxootiga dhaab jaaran waxaan kaa codsanaa muuqaalkan subscribe noo saar like noo saar noo share diray group 5 Canada group 5 Canada waa barnaamij aad u fiican oo dad badan ka faa'iideystay ilaa hadda shaqeynayo dad badan sugaayo oo meel fiican wax u marayo mar group 5 la sheegayo shuruudaha iyo waxyaabaha loo baahan yahay ayaan rabaa inaan si fiican uga hadlo group 5ka dadka Canada jooga oo xagga joogan ayaa dad u soo doodaya waa inay 5 qof ka kooban yihiin 5taas qof waxaa la rabaa waa inay haystaan sharciga ama baasaboorka wadanka Canada ama wadanka Canada inay haystaan baasaboorka sidoo kale ay haystaan shaqo fiican oo permanent inay leeyihiin oo full time job ama ugu yaraan 5 qof 3 qof kamid waa inay haystaan shaqada full time job wax lahay shaqada joogtada ah full time job oo lacag fiican ama lacag ay shaqaysanayaan ayaa loo baahan shuruudo koowaad labada kale dhima laakiin 3 iyo culeys saarayaan marka sidoo kale waxaa la rabaa dadka u dooda ayta waxaa la rabaa shuruudooda inay baasaboor haystaan haddii baasaboor haysanin waa inay haystaan warqadda ku suga baasaboorka waa inay shaqo fiican ay haystaan oo lacag leh waa qodobka labaad sidoo kale waxaa laga doonayaa qodobka saddexaad in lacag gaarayso 16,000 oo dollar waa inay bangiga ku shubaan si hadhow dadkaas imaan doono waxaa la jiray lacagtaas labada sano ama sanadka gudahooda ama sanadka horeey inta magaalada ka qabsanayaan ee shaqo abuur ama wax ay sameysanayaan in lacagtaas hadhowto ay isticmaalaan ay miteed u noqoto ayaa laga doonayaa sidoo kale waxaa laga rabaa markii xagga ay imaadaan dadkaas ay imaadaan inay waxaa la jira lacagahaas isticmaalaan iyo shuruudaha kale waan ka hadli doonaa qaybtaas waa qaybta dadka xagga joogay waa inay soo doodaan midda kale waxaa waaye dadka xagga joogo dad u soo doodayo waa inay ahaadaan isku qowmiyad hadday Soomaali ay yihiin waa inay Soomaali 5 qof waa inay Soomaali wada ahaadaan sidoo kale dadku doodayo waa inay ahaadaan Soomaalidaas oo ah oo wadankooda aan joogin wadankooda wadan ka baxsan sida hadda Soomaalida hadday joogaan Ethiopia ama joogaan Uganda ama Kenya ay joogaan oo qaxootina ka yihiin ayaa la rabaa dadkaas waa inay isku jinsiyad ay yihiin isku qowmiyad waa inay yihiin kala qowmiyad la rabo haddii 5 qof mid Soomaali mid Suudaan mid Ethiopian waxaas lama rabo waa inay isku qowmiyad ahaadaan dadka ay doodayaan waa inay isku qowmiyad ahaan waa shuruudda dadka xagga soo dadka xagga joogo oo Canada joogo oo dadka walaaladooda soo dooday way shuruudahooda intaas ayaa laga doonayaa sidoo kale waxaa la rabaa inay ahaadaan dad dambi laawe ah dad oo dambi lagu haysanin criminal waxba dambi aan geysanin oo dawladda dambi u haysanin waa inay ahaadaan dad nadiif ah inay ahaadaan sidoo kale haddii aan ka hadlo dadka loo soo doodayo shuruudda loo baahan dadka loo soo doodayo shuruudooda waxaa waaye waa in ay joogaan wadankooda inay ka baxsan yihiin sida ay joogaan Kenya Uganda ama Ethiopia ay joogaan Soomaali ay yihiin haddii Ethiopian ay yihiin waa inay wadankooda meel ka baxsan ay joogaan inay qaxooti ku yihiin ay haystaan warqadaha cadeynaya inay qaxooti yihiin UNHCR sida manifesta raashinka iyo waxyaabaha la mid ah warqadaha qaxootinimada waa inay haystaan midaas ayaa laga baahan yahay dadka loo soo doodayo qodobka saddexaad waxaa la rabaa qof dadka loo soo doodayo waa inay ahaadaan 18 jir dadka weyn waa inay ahaadaan qaangaar inay yihiin haddana sidoo kale ay yihiin dad oo dambi loo haysanin dawladda xaggeeda oo dambi loo haysanin dad oo nadiif ayaa laga rabaa marka dadkaas loo soo doodayo waa inta suuradahaas ayaa laga doonayaa marka warqadahooda waxooda in loo xareeyo hadhowt waxaa la rabaa marka waxaa la marsiin doonaa wax adaha interview ama taxaan ay mari doonaan ataxaantaas su'aalo badan ayaa la weydiin doonaa su'aalahaas dadka wax soo xareeyay waxyaabihii ay u soo sheegeen ama waxyaabihii u soo xareeyeen ayaa la rabaa inay ay kale ka hadlaan hadday doomaraan wax qaldan is doomariyaan sidaas ay ku dhici doonaan marka waxyaabo mu hagaagi doona marka sidaas ayaa laga doonayaa fursad qaali waaye dad badan ayaa ka faa'iideystay group 5 la sheegay saas marka marka dhow dadkan oo loo soo xareeyo processka loo soo xareeyo interview la mariyo taxal la marsiyo ay ku baasaan sidoo kale waxaa la jiray caafimaadkooda waxooda sidoo kale security check up la fiirinayaa inaad dawladda dambi galeen in kala waxyaabahaas dhan ama dad inay yihiin oo hadhowta dawladda keenay waxyaabahaas dhan marka laga jaray ay ku guuleystaan ayaa la qaadaya waxaa la geenayaa wadanka Canada ayaa la geenayaa marka la geeyo dadkaas kale waxaa laga baahan yahay inay imaadaan eleboorta inay imaadaan marka eleboorta imaadaan waa inay dadkan ka kaxeeyaan ay geeyaan guryahooda ama guryo ay u kireen ay u geeyaan
markii duuriyaas ay keenayaan kadib ilaa hal sano inay dadkan ka warhayaan shaqo abuurtooda wixii cun lahaayeen jiiftooda dhammaan ayaa laga rabaa iyo caafimaadkooda dhammaan marka waxaasoo dhan ayaa laga doonaya markaas halka sano gudahooda shuruudahaas ayaa laga rabaa $16,000 oo bangi u jira waxyaabahaas inay isticmaalaan sidoo kale waxaa laga doonayaa in ay soo sameeyaan leen ay usoo furaan leen simikar oo 9 lambar inay siiyaan taleefon ay ogadaan waxyaabahaas ayaa laga doonayaa marka waa fursad aad u qaali ah dadka saas marka ay meesha u dhiyaan shaqo abuur waxyaabo dhan u sameeyaan marka Soomaalida meesha jooga wadanka Kenya waxaan u baaqayaa dadka eheladooda qaraabadooda mashruudaha isla fudud yihiin inay caawiyaan ay kor u qaadaan qofka maanta walaalkaada hadii maanta caawiso brimel uu ka soo baxaya qofka maanta walaalkaada hadii caawiso brimel uu ka soo baxay marka dadka walaaladeyda oo dibadda jooga waxaan u baaqayaa inay dadka walaaladooda soo doodaan ay Duro 5 soo xareeyaan waa fursad qaali sidoo kale hadii qaxooti dhaab channel ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar like noo saar noo share garay muuqaalkan insha Allah dhammaan waana maasantiin Ramadaan mubaarak